بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu maanta la kulanay duqa magaalada Boorama Maxamed Xuseen Maydane gudoomiye ciid wanaagsan waayahay marka ugu horeysa waxa lagu guda jiraa maalmihii ciid barakaysan ee ciid al-fidriga maxaad marka oran lahayd ummadda islaamka ummadda Soomaaliland iyo guud ahaan dadka gobolka Awdalba. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا إلهي بما هضله من هذه إلهي كسوق حلقة وحنا نجيب هذا علينا يا بهذا تيفي قريو ونهانتي وحنا دوينها كهم بلييننا أما نقول عيننا عيد الفطر ده بالصوص شقي عمل وناكس تدوينها أنا وحنا هاي عمل كينا واحد كفر تيم السانين وناق نقضه ودوناك اسبرتان أيان تدوينها أنا وهم بلييننا يصنع فيان تدوينها دقمة كنوع. gudoomiye tan iyo markii xilka lagu dhiibay maxaad isleedahay hawl wad qabatay ilaa hadda adigu mas'uuliyad ahaantaada marka aan u soo noqono. bismillaahi raxmaani raxiim. runaantii wax qabadku wuu socdaa waxana way soo qabsoomeen oo runaantii muddada aan joognay wadooyin baan noo qabsoomay xanaanooyin baan noo qabsoomeen wax ka qabanay waxbarashadan maamul daadejinteedii baan noo qabsoontay mashruuca biyaha Boorama galbeedka laga keenayo isagna socda ayaa noo qabsoomay wax qabadkiisii socdo wax qabadku ma yaro oo runaantii dee waa maalin walba hawl maalmeedku kamid waa wax socda imikadan wiigan soo socda ama wiiga dambe waxaan bilaabaynaa laba wado ilaahay yiraahdo taaxasleyda iyo taabartka magaalada oo kontraadkooda horaan u bixinay oo muddo in badan la sugayay laakiin hadda waan bilaabaynaa dadweynahana waxaan u sheegaynaa cid kasta oo barando kula wadada dhexda magaalada bartankeeda marta intaanaan gacanta u leeyimin inay furtaan. waayahay waxa lagu tiriyaa magaalada Boorama tan iyo intii aad adigu xilka qabatay in mashaariicii loo oran jiray joint programka ay ka gaabisay degmada Boorama arinta maxaad ka oran lahayd gudoomiye adoo bulshada si fiican ugu faahfaahinaya arintaas. anagu si fiican ugu faahfaahinayna barnaamijkaasi kama annaan gaabina sidii ugu wanaagsaneed buu socdaa waana dugeedeen waa dhaweedinay monitoring ku yimaadeen hay'adihii aan wada shaqaynaynay mashaariicda GPLG waxay yiraahdeen ma taqaana Boorama way garaadgoys imtixaankii way ka gudubtay waxa loo baahan yahay in hadiyta isku filnaato jawaabteedii waxay ahayd manikay miisaanadiisa 40% ka tahay baa garaadgooyay mise ninka 5% ay 5 ka tahay hargeysadii joint program waxay siiyaan marka miisaaniyadeeda loo eego 5% kama halka anaga 40% ka tahay marka taas waxaan ku yiri qoraalka aad soo qorteen leedihiin Boorama way fiican tahay hawsheedii way garaadgoysay cadaalad daran ka tirsanayna baan ku nidhi cadaaladna kuma dhisnayn sababtoo ah miisaaniyadeeda ayay 40% ka tahay degmooyinkii kale naga miisaaniyada badnaana marka la yiraahdo ma garaadgoynin degmadii ugu dakhligeereed degmooyinka eeda ah iyo garaadgoysay taawaniga ka diidna haadihii wayna nala qaateen mashruuciina imka kisigistiinku waa wax Soomaaliland oo dhan aan la qabno oo maqnaa wiigan imka soo socdana oo bilaabmaya haddii ilaahay yiraahdo labada wadana wax ka qabanayna. waayahay magaalada gudaheeda marka loo fiirsado gudoomiye had iyo jeer waxa la sheegaa in dhinaca bilicda magaalada Boorama ay kulli aan horay loo marinin ama ay adidinku ka baaqsateen horumarinta dhinaca bilicda magaalada haddii ay noqoto dhinaca jidadka iyo haddii ay noqoto dhinaca dhismayaasha cooshadaha ee had iyo jeer jidadka soo gala arintaasi iyadna maxaad ka oran lahayd. والله هرت رونهانتي مركا laga hadlayo bilicda magaaladu way socotaa waad arkaysaan 2010kii iyo maanta
isbeddelka ku dhacay magaaladiina laga dareemay hal bas ma jirin 2010 maantana inta bas iyo inta bajaaj yaacaysa waa wax qabadka gulaha deegaanka uu sameeyay ayaa keenay marka xaqiiqdan la iska indhatiray bilicdana waxa ka horeysan leeyahay anigu nolosha dadka danyartii markay guryaha kiraysan kari waayeen ayaa sabab u noqotay inay cooshadaha yaryar ayna kiradooda ardayada ka dhisayaan iska bixin karayaan ay noloshooda ka soo saaraan bilicda iyo nolosha markaad qiimaysana sidaas ugu miisaamaysa labada isku dhexwadaysa lagaaga baahan yahay oo qofkii danyartiina wuxuu u baahan yahay noloshiisii wax meel ka soo saaro inaad eegto adigoo bilicdiina ilaalinaya nolosha qofka bilaadanka ilaalinaya way nolosha qofka bilaadanka danyartii in la ilaaliyo muhiim tahay baahiyaadka wadankiina ka jira iyo abaaraha ka dhacaya iyo hawsha ka taagan markaad u fiirsatana inaad inta badan waxaad iska ilaalinaysaa ku dacatido qof noloshiisii meel kaga soo baxay intii suurtagal ah bilicda magaaladu way socotaa kamina raali nihin annagoo haddana danyarta eegayna iyaan haddana bilicda magaalada ka shaqaynaynaa jidka ugu imika bartanka magaaladiisa ah ee in iyo outkan kaga dhigi doona magaaladana waxaan mar labaad ugu celinayaa dadweynaha ciidii barande ama sandaqad ka hor dhisatay inay banayso gacantaana nula tagaynaa wiilka soo socda haddii ilaahay yidhaahdo waayahay haddii aan milicsano oo dhinaca jidadka boorama inta badan waa cidhiidhi haddii ay kuwa gudaha ku yaal tahay iyo kuwa kale ee town bilaanka dambe ee ku xidhiirsan ee magaaladan dambe ee koraysa markaasi bajaajta iyo gaadiidka kale had iyo jeer shilal fara badan ayaa jira oo dhibaatooyin fara badan bay bulshadu ku qabtaa arrintaa jidadka oo goormaad waxaa ka qabanaysaan maalin walba bajaajta dadka waayeelka ku leynaysa jidadka arrintaasi run ahaantii waa arrin inta badanba had iyo jeer dhibteedu nagu haysa sababta aan maanta aan jidkaa uga hadlaynaa bartanka magaalada marayaan waa jidka saxmadda ka qaadaya jidkan kale waxaan rabnaa labadaa jid inaan it iyo out ka dhigno saybal dhinacuun loogu maro kalena looga soo galo say u fududaato hawsha waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo labadan bilood soo socota inuu naga soo afjarmo haddii ilaaha weyne waaxid yidhaahdo geesta kale haddii aan u noqonno nadaafaddu waa shay muhiima in had iyo jeer hareeraha laga taagnaadana waa ay ku habboon tahay waxa weeye adeegyada bulshada daruuriga ah ee aad u qaban jirteen waxaa ka mid ahaa khashinka oo gacankuhayntiisu iyo waajibaadkiisuba uu idinka dawladda hoos ahaan oo idin hoos tegi jiray balse hadda tiraba 2 shirkadood ayaa sii socota markaasi gacankuhayntii iyo dabagalkii shirkadahaasi muddooyinkan dambe dib ayaad uga dhacdeen ayaa la sheegayaa amaba waad ku guuldaraysateen inaad ka warhaysaan oo magaaladii khashin ayaa meel walba hadheeyey arrintaa maxaa ka jira bismillaahi raxmaani raxiim horta run ahaantii qashinku maaha wax soo afjarmaya ee waa wax nolosha la socda mar walbana way magaaladu korodhan oo sii kordhaya waxa loo baahan yahay marka annaga oo taa ka duulayna markii horena shirkad monopoly looga dhigay magaaladan hawsheedina ay socon weyday sababtan ugu kaliftayna shirkado kala ogolaano si adeegii dadka wada gaadhahay shirkadii ugu horeysayna wanaga fasaxiga siinay hawshii si fiican bay labada xaafadood ka hawlgalayso uga wadaa haddii labada shirkadooda iminka jira ay ku filnaan waayaan kuwa kala ogolaansho siinayna wanti la yimaado qalabkooga iminkadan wiigagan iminka soo dhaafay rabadaanta dhexdiisa مشروع يوروبيان كوميشن أي هيين ولو ترتمي دقموك الصومال لأنبا جري أنا إسفانيين مركان من خبيرها أديك سدي مشروع عدل بكيسيوان السماني دقموكي كلنا أقوانتي بكدين ما تدقموك الصومال لأنه ضربت ملها مشروع أنا واحد كدي جنايم كدل بكيسة سانيتيشن كينا كوبولي سنة ومرجينيا واي هاي نكا كله وهدي عن أولي حنو واحد جرتا كوانكا مقالة oo isna adeegyo bulshadan u qaban jiray oo daruuri ah
badqabkeeduna run ahaantii ay inoogu jirto bulshada markaan caam ahaan u eego ay dan inoogu jirto waa laga dayrinayay nadaafadiisa muddooyinkii dambe arrintaasi goorma ayaad wax ka qabanaysaan arrintaasi run ahaantii way jirtaa wax kastoo farsamo xumo ku wareegaana dhibtaasuu leeyahay qolo shirkada annaga horteeye lagu wareejay qoladii kuma guulaysa way ku guuldarraysata wiigagan markuu ciiddu naga baxdana sida ugu dhaqsad badan baa looga wareejin doonaa oo socodsiinteeda dhismihiisa iyo waxqabadkiisana inta itaalka ayaga waan ka qabanaynaa inta naga dhimana hay-adahaan la galayna hadduu ilaahay idhaahdo haddii aan waraysiga dhan kale oo ku soo noqonno amaba aan dhan kale ka yar jalleecno muddooyinka dambe waxaa la hadalhayay guddoomiye inaad safar galayso oo magaalada ay boorama mataanaha la tahay ee henley aad socdaal ku tegi doonto horeyna sannadihii aynu ka soo gudubnay waa la hadalhayay arrintaasi mahal bacaad lagu lisaybaa mise didiilada socdaalkaasi waa uu kuu qorshaysan yahay ilaa adiga hadda bismillaahi raxmaani raxiim run ahaantii hawshaasi henley iyo boorama xidhiidh soo jireenah ayaa ka dhexayn jiray muddooyinkan dambe hoosu dhac ayaa ku yimiday annaga oo taa soo noolaynayna xidhiidhkii jirayna boodhka ka jifayna way noo qorshaysantahay hadduu ilaahay noo suurtogeliyo inaan tegno xafladduna henley keli aad kama dhacaysay waxaan ugu talagalnay isla maalin inay ka wada dhacdo boorama iyo henley si loo soo celiyo xidhiidhkaa hore ee jiray waana degmadu la mataana ahayd waana mid loo baahan yahay caalamkana inaad cidun ku xidhnaataa waa mid muhiima run ahaantii dadweynaha reer boorama waxaan u sheegaynaa inay hawshaa nagala qayb qaataan ay xafladdaana u diyaargaloobaan xaflada aanan macnamo degmada u soo kordhinaynba waad ka qayb gashaane waxaan leenahay taana 15 bisha 7 inaad u soo diyaargalowdaan sidaan hawshaa henley iyo boorama laguma boodhka looga jafi lahaa dabaaldegayga waxaan dadweynaha ku waanaynaynaa inay nagala soo qayb galaan dib loo soo noolaysiin lahaa soo noolaynteeda inay nagala soo qayb galaan bisha 15 maalinta halkan ay ka dhacayso xafladdu henleyna way ka dhacaysaa xitaa haddaan anigu tago maamulkayga kale amar ku siinaya inaad ku qabtaan degmada dadweynuhuna waxaan ka rabnaa inay xaflad weyn oo taageeradeeda leh ay nala muujiyaan waayahay maalmihii aynu ka soo gudubnay ama toddobaadadii aynu ka soo gudubnay waxaa ka jiray shaqaaqooyin golaha deegaanka ee degmada saylac ka aragti ahaan amaba xeer ahaan sideed u aragtaa isbeddelka dhowaan laga sheegay saylac ee qabteen golaha deegaanku iyo doorashadoodii sideed u aragtaa bismillaahi raxmaani raxiim horta noloshu khilaaf ma weydo laakiin khilaafku wuxuu u baahan yahay mar walba farsamo iyo wada tashi in lagu dhammeeyo iyadoo oo loo eegayo sharciyadda waddankuna wuxuu leeyahay hay-ado ama wasaarado ama sharciyad dawladaha hoosena waxaa liidhan u ah wasaaradda arrimaha gudaha hawshaasi waxaa leh sharciyaddana inay mariso ah wasaaradda arrimaha gudaha iyadaana go'aankeeda leh siday u fulisaanaan sugayna haddii ilaahay idhaahdo waxaa jira murudno dhul oo soo noqnoqda had iyo jeer haddii ay tahay dhinaca beeraha iyo haddii ay tahay dhinaca dhulka ee jagooyinkaba adiga ka hor iyo intaad xilka joogtaba arrintaasi waa joogto oo had iyo jeer dhaliilaha ay dadku u soo jeediyaan marka dhinaca dhulka laga hadlayo dawladda hoose dadweynuhu ayaa ay ka mid tahay dhibaatooyinka inay ka qayb tahay dawladda hoose marka muranada dhulka ilaa xad wax ma ka qabateen bismillaahi raxmaani raxiim horta run ahaantii gobolkeennu
waxa ilaahay mahadiye wali khilaafaad dhow cid isku dishay ama dib weyn ka timiday way yartay waxyaalaha kaga duwanahay ummadaha kale in horumarka ka sameeynay ummadu wax isku qabsan kartaa laakiin in la kala baxo oo arrin lagu kala baxo ayaa muhiimad ay tahay waxna waan ka qabanayo guddi naga madax banaan oo guddida khilaafaadka dhulka la yiraahdo oo 5 wasaaradood iyo dawladda hoose ka kooban ayaa jirta kiiskan u maarayno iyaga loo dhiibaa go'aankay ka gaadhaana maxkamadda sare oo looga qaadan karaa abiin kumana faragelino wixii fulin nooga baahdaan markaan ugu fulinteeda leena waxa tahay gudoomiyihii degmada Boorama baylaha fara badan ayaa jira oo bulshadu inta badan ay tabayso sida airportka magaalada Boorama kaasi oo mudooyin dhaweyd u muuqday inaad wax ka qabanaysaan marka bal hadii aan dhinaca airportka ku noqono hawshiisa goormaad soo afjaraysaan amaba horumar aad ka gaarsiin doontaan airportka idinkoo la kaashanaya kullay dawladda dhexe oo iyadu idinka faradhuuban oo madaaradii dalka oo dhanna wada dhistay balse kan Boorama oo ilaa hadda yahay mid aan qorshahaba lagu darsan marka hirgelintiisa goormaad ku talaabsan doontaan bismillaahir rahmaanir rahiim horta run ahaantii marka garoon la leeyahay in afka laga sheegaa way fududa laakiin wax qabadkiisu adiga iyo aniga iyo dadweynaha ku nool degmada iyo kuwa qurbaha jooga iyo dawladda iskaashata ayaa wax ka wada qaban karta laakiin anugu beenaalamiyo been ku sheegay ma adan ku dhamaanto waxba ka qabanaya waxba kama qaban karo keligii laakiin haddii dadweynuhu taladeeda iyo hantideeda iyo inta ka dhiman anugu buuxin karaa marka ay leeyimaadaan waxa looga baahan yahay dadweynaha reer Boorama nin fadhiyo waxa leeyahay lagdini la fudud hawsha sida ma war inaan isku tashanno ayaa loo baahan yahay ceelno uma qodna cidna uma maqna inaan nagu isku tashanno ayaa loo baahan waayahay maanta waxaynu ku jirnaa munaasabadii 26 Juun xalaytana miidiyaha sidii aan ku arkaynay mas'uuliyiinta dawladdu qaarkood waxa ay lahaayeen waa laba munaasabadood oo iskalay ciida mubaarak ciid al-fidri marka laga eego iyo 26 Juun adiga sideed u aragtaa arintaasi dib u soo noqoshada mar labaad iyo qorshaha ay xukuumaddu miiska u saaran dib soo noolaynta 26 Juun bismillaahir rahmaanir rahiim horta 26 Juun baa la soo nooleeyay lafteeda ma khalad ah 26 Juun waxaan maanta sameeynayna waa maalintii gumeysiga Ingiriiska gobolada waqooyi ka xorobeen كون اسكتاج أندليشني نوح أو دليله ومالنت إنجليز حرني ماذا أو النسي واللي هي الله تنقلون به اللي هي الله تنقلون مركع تمت صعبة مثل قريك ربطه تريبا ما ومالنت بميسي كان كحروني مالنت ندم ستية تمكمينه ومالنت كون اسكتاج ديبا ولا صنع قل اللي هي الله تنقلون إنك الله يعني مركع ربع وكونفور لك قبلني markii xaaladii inagu dhacday ka bacdigeed ayuu soo noqod ku yimid marka 26 Juun waa maalin gobolada waqooyi xornimada gumeysiga ay ka qaateen Ingiriiska waana maalin jirta taariikhdeedana leh ciid al-fidridna ayaa ka weyno maanta ciid al-fidrida haday ku beegantay ciid al-fidrida Ilaahay waa waajib wax bilaadan waajibay ma laba shay markii gudboonaadaan Ilaahay waajibiya la qaadanaya marka ciid al-fidri daaweyn sida diinteena islaamku inoo sheegayso ciidaha kale waa ciid bilaadan ku sameeysta oo maalinteeda ama iska gabagabooba laakiin tan iyadoo nolosh ay qayb ka tahay ciid al-fidridu ilaa ay nolosh ka dhamaanaysana waa mid Ilaahay waajibiyay wana soconaysa
aad baan dadweynaha degmada ku nool sida wanaagsan u guteen ugu mahad celinayna islaamnimada ku dheehan tahay in si xoojiyaan oo inta kaga hadhin waay nolosha ka qaybtahay iyo loo baahan yahay wanaagana isfaraan isna cafiyan waayahay muddo dhaweyd waxa ka jiray deegaanka Baaldheere oo degmo ahaan marka laga yimaado degmooyinka Korohayda degmooyinka qadiimiga ah sida Booramo kale Baaldheere oo deegaan ahaan ka tirsanayd degmada Boorama in muran dhul oo dhinaca deegaanka degmada Gabiley mas'uuliyiinteedu inta badan ay miidiyaha ka hadlayeen in ay ka mid tahay gobolka Magaraysa Gabiley ama degmada Gabiley ay hoos tagto arintaasi maxaad kala socotaa ama maxaad ka oran lahayd arinta noocaasi ee marka mas'uuliyiinta Gabiley ay miidiyaha noocaasi uga hadlayeen ama maxaad uga jawaabi weydaa adigu bismillaahir rahmaanir rahiim horta miidiyuhu maxkamad ma inaad kelmad miidiyaha ka tiraahdo mid wax jaangoynaysa ama wax soo afjaraysa ama xukunad ridaysa ma qofku mas'uulku markuu yahay waxa loo baahan yahay hadaladiisa oo dhowrto degmooyinkuna ma aha kuwa maanta sameynayno waa kuwa doorashooyinka lagu galay ee doorashada Soomaaliland loogu maari waayay de ma aha kuwa maanta aan sameynayno sharciga iyo xadiyay waana degmooyinka ku salaysan 60 ee markaan imika xitaa saami qaybsiga la sameeyay 60 baa lagu saleeyay doorashooyinku degmooyinka 60 baa ku salaysan ama Gabiley ka hadlo ama Hargeysa ka hadlo ama miidiya waxa ka yiraahdo mid ma aha sharcigu dastuurku wadanku leeyahay dastuurka degmooyinka kala xadeeyay waa ka doorashooyinka lagu galayo cidii kale wax kala ka sheekaysaa waxay noqonaysaa afma wax la yiri nabadna way fogaysaa colaadna wax kama tarto waayahay gudoomiye doorashooyin ayaa hadda afooda inagu soo haya kulley xisbiyadu way tartami doonaan adiga laftarkaagu mustaqbal ahaan doorashooyinka dambe ee golaha deegaanka ma laga yaabaa inaad dib dambe isugu soo taagto bismillaahir rahmaanir rahiim runaantii inaan ka koraan rajeynaya inaan isku soo taago ma doonayo dii Ilaahay yiraahdo kolba marxaladda taagan tahay inaad ka korta haboon inaad hoos soo noqoto sida ragga qaarkood meeshay soo mareen ku wareegaystay ma fiicna waxa loo baahan yahay inaad marxaladaha qaarkood ka korto hadii Ilaahay yiraahdana haduu nagu sii waqtiga doorashada inaan ka koraan rajeynay gudoomiye waxa jirta sanadkii roobka amaba roobkan sanadkan guga in dhinaca beeraleyda aanay roob caynkaasi u sidiin oo beerihii aanay waxba ka bixin sanadii horena aad ogeydo kullay abaari iyo waxa ay jireen oo soo guurto fara badan ay deegaanadeena ku sugnaayeen marka maxaad baaq u jeedinaysaan xukuumadda haddii aan eegno dhinaca nolosha beeraleyda oo ay saameyn ku yeelatay abaarihii jiray iyo roob yaraanta isbeddelka cimilada ka yimiday bismillaahir rahmaanir rahiim horta gacan bilaadan wax ma tarto Ilaahay baa gacantiisa lagu dhargaa Ilaahay waxaan weydiisanaynaa bariicideed baan joognaa inuu raxmaadkiisa oo ballaaran oo ummadda deeqa oo inoo liso taa baahida laga bixi karaya talabaad waa kaalmo wixii inta ka soo haray gacanta Ilaahay waa kaalmadana dawladdu iyadaba mas'uuliyad xilku ka saarnaa wadanka ay tahay run ahaantii waxaan ugu baaqaynaa dawladdeeda iyada oo dadweynaheega u dhagan nugul ad arkayseenna
maadaama amaaru soo noqnoqdeen in kala ay sameeyay ay doonayso oo xitaa dadweynaha u soo bandhigtay waxay kaalmo bixin karaan waxaan leenahay dawladdeeda oo madaxweynuhu ugu horeeyay sanadkan roobkii diraacadu ka baaqday gobolkan awdal marxaladda maanta taaganay xaga ku soo galayna duuna ilaahay naga soo furan in loo dhagan nuglaado indhuhuna ay u furnaadaan dawladdeeda ayaa loo baahan yahay ka sii taxadirto ilaahay baan iska rajaynaynaa inuu gacantiisa weyn nagu soo furto waana mid muuqata saacadda imkaan taaganna biqil meelo ka biqilsan yahay ma jirto waana waqtiga imika beeraha la baaqbaaqi lahaa ee dalaga sanadkaas la goodsanayo baaq buu haata saacadda ku sugnaanahay sida ilaahay looga cimiladaan uga baranay ma sadicin ilaahay baan xagga dambe inuu naga kabo oo diraac fiicanna siiyo aan weydiisanay karan fiicanna siiyo weydiisanayna dawladdana waxaan leenahay arrintaa u sii diyaar galowdo wax ka qabadkeeda haddii ilaahay gacantiisa inala soo gaari waayo gudoomiye hadda ka hor waxaad hore u sheegtay in mustaqbalka dhow biyaha boorama laga haqab beeli doono oo ceelal galbeedka ay ka jiraan qorshahana ay ugu jirto dawladda hoose iyo shirkadda al-shabaab ilaa haddana tabashadii iyo cabashadii dadweynaha ee dhinaca biyuhu maalinta ka dambaysa waa aysa soo taraysaa marka maxaad ku odhan lahayd dadka dhaliila waxqabadkaaga ee arrintaasi maalmihii ugu dambeeyey ku eedaynaya kolley inaad ku fashilanteen gacan ku haynta shaaba iyo ku dabagalkeeda dhinaca biyaha maxaad odhan lahayd bismillaahi raxmaani raxiim horta xaqiiqda la iskama indhatiro degmadeenna marka laga hadlayo laba institution baa loo soo qaataa inay model u yihiin geeska Afrika oo jaamacadda Camuudeed iyo shirkadda Shaaba oo markaynu xaqiiqda ku wada hadlayno laba maalmood biyo ama wiigaga biyo yar xakadeen wax lagu qiimeeyo ee waxa lagu qiimeeyaa inta shirkaddu soo shaqeynaysay inta imsa jeer bay biyo yaraan timiday markaad wax qiimeynayso 13 sano soo shaqeynaysay wiigan ama bishii rabaaleen ku jirno hadii biyo yaraan timiday bal waxaad qiimaysaa 13 sano soo shaqeynaysa Shaaba intee biyo yaraan timiday imsa guray ku jireen biyo 230 guri bay ku jireen maalintii hawsha loo waday maantana 12 kun oo guri ka badan bay ku jiraan bal waxaad qiyaastaa markaas shirkadaasi adeegii ma sidii loogu talagalay u fulisay mise uma fulin anigu waxaan qabaa sidii ugu fiicneed bay u fulis dadku waxa la yiri nolosha ku dhex jiro ma arkee cid kale dibadda ka joogta aragta oo bal degmooyinka kale gobolada Soomaaliland kamid ah Hargeysa waa caasimadda wadanka iyo Hargeysa mucjisada ay ku noqdeen wadogti inagoo shaawal ku meedhana ay Hargeysana malaayiin lacag mooyan biyaha meel ku dhacayaan وكالات بيها هرمرت كان معمر لكن شركات الشعب waxaad ogtihiin in seminar gobolada Soomaaliya dad inta laga soo qaaday seminar sida u shaqeyso ay macluumaad u siiyaan imana dadkii wanaaga dhibaan u maleynayay shirkadaasi way shaqeysay wayna shaqeyn doontaa annaguna waan garab taaganayna shaqeyso mashruuca biyaha buurama laga keenayaan marka mashruuc laga hadlayo biyuud waad garanaysaa dhibta iyo baaxadda iyo hantida uu baahan yahay halka ceelinta ku kacay waad garanaysaa annaga cid nooga hedel badan ma jirto maalinta halka ceelasha laga qoday anugu ninkii u bareeraa aadaan ahaa SDF iyo KFW Hargeysa Burca laga leeyahay UNICEF biyaha buuru marka rabseeska u dhigtay maanta waxaan ka doonaynaa in ceelashan oo dhaqaajiso UNICEF SDF hadalkeen 1,800,000 ku seexday
markii xafiiskeeda la geeyey shir iyadoo la fadhiyo SDF-na waxa kaalmaysa oo European Commission iyagoo dhaliilo ama xagga dib u dhacanka doorashooyinka ku yimiday ay kaalmada ay bixinayeen iyaguna dib u jiideen taa lafteeda saameyn bay nagu yeelatay laakiin mashruucaas waa sida loo saxeexay dhisaynkiisu uu soo dhammaaday dhulkii beebabka iyo taangiyada iyo wixii dhan miyuu intuu ku kacayay SDF way qiimaysatay kontraadkiina way bixisay dee maalin iyo laba laguma dhammaystiray sanad u qaata sanadkan iyo dhiinkana hadduu ilaahay idhaahdo dhammaadkiisa inuu dhammaadaan mashruucaas rajaynayna waa yahay mustaqbalka qorshe ahaan maxaad bulshada aad miidiyaha uga sheegaysaa ood u soo bandhigaysaa oo idiin qorshaysan oo dhinaca horumarka ah bismillaahi raxmaani raxiim horumar marka laga hadlayo horumarka waxaa ugu horreeyaa inuu qofka horta dadweynaha degmada ku noole inay commitment u noqdaan oo u wacyigashan yihiin inay degmadooda wax u qabtaan ma aha in mas'uuliyiinta wax ka sugaan haddii fahamkooga iyo garab istaagooga iyo taladooda iyo hantidooda aan helno waxay noqonaysaa inay horumarka degmadu guulaysto haddiise intaaba ay nagala gaabiyaan ma noqonayo mid guulaysta waxaan u baahannahay taladiinna hantidiinna aqoontiinna iyo waxqabadkiinna inaad nala garab istaagtaan waa yahay bulshada aad madaxda u tahay ee magaalada Boorama maxaa talaa iyo tusaalaa ee guntii iyo gabagabadii barnaamijkeennan aad u soo jeedinaysaa bismillaahi raxmaani raxiim waxa ugu yaran u soo jeedinaya waxa weeye wadada bartanka magaaladan bilaabmaysa waa 2 kiiloomitir kiiloomitir iyo 300 baanu haynaa hanti hadduu horumarku reeb Boorama dhab ka yahay 700 mitir ku darsadaan inta anaga needaynayaan waxaan ka rabnaa cidda kula guriyo labadaas sakadood iska soo horjeeda wadada kor u baxaysa magaalada bartankeeda iyo cidda meherad ku haysataba 700 mitir iyaga looga fadhiyaa cid kastana intaan ku waajibino 140 kun baan imika gelinaynaa 700 konton kuna ma 40 kun ba ku kiciyay ama 60 kun bal inta inaad nala qabataan 2 kiiloomitir aan bixino isku xidhno wadada ka dhacaysa bariga magaalada dhigta ka dhacaysa iyo taageeroonka tagaysiina isku xidhno dibeetana labada wado inay awtan ka dhigno ayaan rabnaa bal 700 mitir ha u diyaar galooban dadweynuhu waxaan ku darsan lahayn wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa tahay intaasi daawadayaal waxa inoogu dhan barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu waraysiga dhinacyada badan taabanaya ku waraysanay gudoomiyaha degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane gudoomiye waad mahadsantahay adiguna Allah ya ciise way adiga